subax ballaaran ayaa ardayda dugsiyada sare ee Elfweyn ay maanta dhigeen barnaamijkaasi oo ardaydu kaga cabanayeen deeqa waxbarasho oo la siiyay qaybta gabdhaha ee dugsiga sare ee degmada Elfweyn waxayna ku sheegeen in musuqmaasuqay deeqdaasi waxbarasho oo maamulka dugsiga sare ee degmada Elfweyn Saalax Awood Caateeye oo burcadii ardaydu ay ka mudaharaadayeen ka hadlay ayaa isku dayay inuu ardayda kala diro hase haatee arrintaasi kuma guuleysan iyadoona ay ardaydu ku gacan saydheen maraan isku daynay inaanu arrintan ardaydu ka gaduuday wax ka weydiino guddoonka wasaaradda waxbarashada ee degmada Elfweyn Kaysa Shira Saalax oo arrintaasi lagu soo eedeeyay isaga inuu ka dambeeyo ayaanay noo suurtagelin hase haatee maamulaha dugsiga sare ee degmada Elfweyn Saalax Awood Caateeye waanu arrintaasi wax ka weydiinay ayaa noo sheegay sida tani Cabdiraxmaan markaan anigu arrinta ogaaday maalin sii horeysay warqad gidaar ku dhagan baan eegay waan akhriyay waxa warqadda ku qornayd wax loo baahan yahay gabdho umulusooyin loo soo tababaro waxa ku saxaaxnaa gudoomiyaha waxbarashada degmada adigu arrintaas markaan aanu ma sii dhabagelin oo waqti iga soo gaadho war oo kale oo aniga xaggayga maamul ahaan la iga codsaday ma jirin marka ala kulli xaal arrintii saaka markaan iskuulka tagay baan anigu dareemay in gabdhuhu yara kacsan yihiin arrintii waan baaray gabdhihii la sheegayay ee la lahaa waa la yara qorqoray waan yara eegeegay fasalladan dhex maray kadib anigu isla la xiriiray wasaaradii oo arrinta bal weydii wixii ka jira oo bal qoraalkan iyo wixii naga khuseeya waxa dhacday in gabdhihii ay dhalinyaro noqdeen foodo sameeyeen iskuulkii ka soo dareereen waan ka hor tagnay markaa waan joojinay waxa ku arrinta maxaa jira bal sheegnaan wixii jiraan xalilo waxaan ala kulli xal soo baxday gabdhuhu inay ka cabanayaan gabdhahaas oo markaa iskuulka laga qoray iskuulka markii laga qorayna si cadaalad darro loo qoray haday jirto oo wali iyagu markaa ku eedeynaya gudoomiyaha waxbarashada degmada haday jirto waxaanu kulli ka wasaarad ahaan jecelahay in la xalilo si kastaba ha ahaatee habnidaamka waxbarasho ee degmada Elfweyn iyo guud ahaanba gobolka Sanaag ayaa tayadiisu weeqantay iyadoona aanu dhawaan kormeer aanu ku tagnay dugsiyada waxbarashada ee deegaanada Elfweyn ay xukunto ay ka jiraan xaalado aan dalka qaarkiis intiisa badan ka jirin oo ay ardaydu ay ku fadhiistaan dhagxaan waxaana ay ka mid tahay abacsanaanta baasan ee ka muuqata wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag guud ahaan arrintaasina arrinkuna uu marayo xaaladii 1992 Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid telefishinka caalamiga ee Bulsha TV Elfweyn.